هاولالو السلام عليكم ما يمر سؤال المحل بانت ولا المحل كعاونا ها والله حرب انا هي كل مساجد المتفوت يستاهل طالب بكره حلوه طالب تخاف بجد ولا قارقو هاي كل واحد hadda ku meel walaal ay sugto laamirada halaburka fikir cusub waa mid kamid ah halbeega lagu caabiro guulaha nolosha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland markii ugu horeysay wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu ka hirgeliyay fikir ganacsi oo cusub oo aan hore uga jirin Hargeysa kaasi oo ah in magaaladu ay yeelato banjar la wareega oo gaadiidka ugu tagaya goob kasta oo ay ku banjaraan marka ay la soo xidhiidhaan kadib Axmed Ibrahim Qalib waa mulkiilaha banjarlaha wareega waxaana uu sheegay in meel kasta oo kamid ah gudaha magaalada Hargeysa iyo waliba duleedka magaalada uu ugu tago gaadiidleyda adeegaasi u baahda marka ay la soo hadlaan waxay ugu dhaliyay baahida Soomaaliland gawaaridooda oo aad iyo aad u badan waxa dhaaf ah oo wax caawimaada iyo wax magaranaysa mas'uuliyada aan wadooyinkiisa saarin dhaxdooda ku banjaraya waxa laga yaabaa inuu gaariga kaliya banjaray 300 oo gaari xalibo waxaan ka caawiyaa waliba qaarka telefoonada haya aniga tantayda yaan u tagaa on ka caawiyaa oo u tagaa halka ay taagan yihiin waxaan weydiiyaa marka ugu horeysa baahida gaariga noocu yahay waxa ka xun taayirku inta tiro uu leeyahay marka taayirka aan hayo iyo halka uu joogo marka uu sheego oo u tagaa waan qabtaa waxay u baahnaa oo dhan ma jira inta baabuur inta kula soo xiriiray ku halkaas ku banjaro taayirkiisa weyn ma jiro inta badan ma jiro waxaan sameeyaa taayirada in aan nooc kasta anigu sameysto oo sii geliyo taayiro oo meesha ku diyaarsado mar walba ها مر البيتاسي مرهدون بدينهين صدح براش بان leeyahay oo daamaha ku kala yaala kadib halka igu dhaw ka qaata oo u taga oo u geeya oo soo qaadkiisa waan banjariya waan la hadlaa kaagi u dhan yahay kaygana kama ku yiraahdaa waxaan doonayaa aad iyo aad inaan isku taxalujiyo oo aan baahiyaha ugu weyn ee baahida Soomaalida ay qabato waxa kamid ah gawaarida waxaan ka shaqeeyano banjalaha wareeganahay waxaan ahay makaaniga wareega waxyaabo badan oo niyadeeda ku jira insha Allah qaban doona oo kamid tahay inaan gawaarida nooca waaweyn aan soo dhigo taayiradooda oo sameeyo daawayaashooda halka ay taagan yihiin inuu gudto oo banjariyo kana caawiyo dilactor waxa baan doonayaa inaan gaariga ku sameeyo board sticker gibigiisa baa oo lambarka gaariga aan ku dhigo meheradahayga oo dhan aan lambar u sameeyo gaar ah lagana soo xiro hadii ilaahay qadaro insha Allah waxaan doonayaa inaan board sameeyo gaariga ku sameeyo meheradahayga ku sameeyo oo gobolada oo dhan gaaro hadii ilaahay qadaro xaqiisa noqoto شالب من لكن سعيد عبد الحكيم ياسين وحكى بنشري gaarigiisa ma uusan haysanin taayir labaad ama qalabkii uu ku furi lahaa taayirka banjaray laakiinse markii dambe waxa uu sheegay inuu la soo xiriiray Axmed Ibrahim Qalib oo ah mulkiilaha banjarlaha wareega waxaana uu sheegay inuu u qabtay adeegii uu baahnaa taasi bedelkeedana waxa adeegaasi ku tilmaamay inuu yahay mid wax weyn ka bedeli doona baahiyaha gaadiidleyda magaalada Hargeysa walaal Siciid Cabdi Xakiin Yaasiin baa yiraahdaa waxaan ahay ninka gaarigan taxiga u tay adigu ilaa muddo saacad ka hor buu gaarigu halkan taayirkiga banjaray anigoo qofku ordaya nafar airportka u socda marka hore Ilaahay maxad iska leh marka labaadna inanka banjarlaha wareega aad baan ugu mahadnaqayaa sababtoo anigoo halka ku cadilan waad aragtaa meesha cidlada oo cidnaan iskugu miciinin baan taagnaa inankaasuna de fikradda maskaxdiisa noo maalay aad ayuu mahadsan yahay wallahi horta walaal markii hore de marka qaar inagoo xataa nafarada sidna markuu walwal baan qaban jiray moogti inkastoo imaka walwalkii hore uu naga daay moogti ya sababta markii hore imaka isku midna faqriin baa u dhaxeeya sababta imaka banjarla wareegaya hal meel walba wax dhamaata naga gaadho isagoo ma la hadlayna iyadoo dhalinyaro fara badan ay ka cawdaan inaanay Soomaaliland ka banaanayn fursado shaqo oo ay u hayamaan wadamada qaaradda Yurub iyo dunida inteeda kale haddana taasi bedelkeeda waxa jira dhalinyaro la yimaada hal-abuur ama fikir cusub oo aan wadanka hore uga jirin oo uu ka mid yahay Axmed Ibrahim Qalib mulkiilaha banjarlaha wareega Sagal Beldeq Home Cable TV Hargeysa